wuxuu ugu dhahay cunug keeno dhaawdid cunug ma keenaya dhahay maxaa doonta cunug kaleed maxay tahay bas cunug dana kugu jirto ina keentid waxdan iigu jirto ma lahan dhahay bas nin oo gadaal fadhiyo gacanta taagto biskoolada oo ninka u soo dhiibay biskooladan cunug marka doosh u saarnaa caloosh iga qabta cunug keen xijaabkana uu iga hay cunug keen ugu dhahay marka la aada walwalay u dareemay naxtin weyn ay ugu dhacday waan cararnay anagoo kobol aan ah gabadhii hadda u tagnay meeshii alxamdulillaah waa dhacdo argagax iyo murugadeeda xambaarsan hooyadan Soomaaliyeed ayaa la damcay in ilmigeeda si xoog ah looga dhaco burcadda ilmaha yaryarka xadda ama jirka bilaadanka ka ganacsata ayaa maalmihii u dambeysay laga nastay iyaga oo isku dayay in hooyadan Soomaaliyeed ilmigeeda si xoog ah uga qaataan ama ay ka dhacaan haddaba hooyadan ayaa nala soo xiriirtay oo nala wadaagtay sida ay wax u dhaceen iyada oo nooga sheekaysay qaabka falkaasi u dhacay haddaba si muuqaalkan meel dheer u gaaro waalidiin fara badanna ay uga digtoonaadaan ugana ilaashadaan tuugadaas ilmahooda muuqaalka la garee taas waxay sabab u tahay inuu muuqaalku meel dheer gaaro sidoo kaleete waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee maanta aadna soo booqatay subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan warbixinada iyo muuqaalada aan halkan soo gelino ku soo noqod wanaagsan dhacdadan argagaxa leh ayaa waxa ay ku dhacday hooyo Ifraax Maxamed oo ah hooyo da'yar iyada oo kooxo burcad ah ay doonayeen inay ilmigeeda ka dhacaan maalin cad waxa ay nooga sheekaysay sida ay galabtaasi wax u dhaceen waxaase xusid mudan dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho gudaheeda 17 bisha koowaad ee sanadan cusub ee 2021 axadii la soo dhaafay ayay dhacday dhacdadan naxdinta leh iyada oo hooyadani ay la kulantay wax aysan filaneyn maadaama ay la kulantay in ilmigeeda oo dhabta u saarnaa ay ka dhacaan ama ay ka xoogaan xilli ay daawo u soo doonatay farmashiyo u jiray in yar gurigeeda se markii ay ka soo laabatay halkaasi ee dhacdadan argagaxa leh ee la kulantay haddaba waa kana ila soo daawo muuqaalka ee Ifraax uga sheekeynayso dhacdadaas argagaxa leh ee qabsatay iyo qaabkii ay uga badbaaday nimankaas doonayay inay ilmigeeda ka dhacaan ama ay ka xoogaan anigoo cunug yar iga xanuunsan oo farmashiyo ka keensaday baawur jidka maray marka baawurka aniga maan shaqeylaa galabta inuu xaafado wareeganay marka maanan ka shaqeynay bis soo socodka marka meel oo bidageena meesha ku taalo oo geed iyo qashimaan yaalaan bas baawur dhankeygu xagga marka u soo jaleecdo waa xasta baawurka jidka u gudbaya بس موسم قد مجدكو وعلش مركه بس مرايد ودجستي قفك وحو راح جي اسعدتها ويغ بلاابه marka waxa dhahay meesha usoo maxaa ka rabtaa hadi bas marka wuxuu ugu dhahay cunug keeno dhaawdid cunug ma keenaya dhahay maxaa doonta cunug kaleed maxay tahay bas cunug dana kugu jirto ina keentid waxdan iigu jirto ma lahan dhahay bas nin oo gadaal fadhiyo gacanta taagto biskoolada oo ninka u soo dhiibay biskooladan cunug marka doosh u saarnaa caloosh iga qabta cunug keen xijaabkana uu iga hay cunug keen ugu dhahay marka ma keenayo ay ugu dili kartaa le bas markaas saday ninkii kale oo gadaal fadhiyo daaqad gadaal iska soo furo markuu daaqad gadaal iska soo furay ana wax soo cararay dukaan meesha ku yaala baraf lagu gado asoo gale maamo xaafad diriska soo wax marka bari xaala cunuga liiga qaadano yaa dhaliga dafarba bas ciyaalka xaafadna iimaadeen wiilasha xaleen baawurka aawo cunugka qaadano wiilasha deebanaan ku soo baxeen baawurka uu kala firay uu baxawo Ifraax weligeed kuma aysan fakirin ilmigaaga ayaa laga xadayaa ama la isku dayayaa in laga xado ama laga dhaco balse waxa ay noo sheegtay dhacdadan ku dhacday inay murugo iyo argagax ay ku riday iyada oo sheegtay inaysan har iyo habeen seexan maadaama dhacdadan aad ku naxdinta badan ee la kulantay waatana mar kaleete Ifraax oo ka sheekeynaysa dhacdadan aad ku naxdinta badan ee soo food saartay nafsadeeda waligeed saas niyadda ma soo galinba laakiin shalay markii la ilaa xal waa murugeysnaani ilaa xal ma seexan walaahi waa waalidkay waxay dhan kun jara in muddada la xaday marka cunugaaga laga qaadan banaanka iska geenay u dhahay aabaha dhalay ilmiga yar ee la afduuban rabay ayaa markii uu ogaaday xaaladda ee gashay xaaskiisa iyo dhacdadaas argagaxa leh ee la kulantay ayaa asaguna dareemay walwal aad u fara badan maadaama xaalad aad u xun ee gashay xaaskiisa isla markii uu cabo marka uu sheegay isagana sidoo kale isla markii uu shaqo meel shaqo jiro ka imaado xaafad dariska inuu shal isku soo baxeen sidoo kaleete waxaa nooga warramay dhacdadan argagaxa leh Kaha Cabdulle Maxamed oo eedo u ah Ifraax oo dhacdadani ee ku dhacday iyada oo ahayd qofkii ugu horreeyay ama dadkii ugu horreeyay ee la xiriirtay Ifraax markii dhacdadani qabsatay iyada oo sheegtay in baraha bulshada ay ka arki jirtay ama ay ka maqli jirtay ilmay la xaday iyo dad ka cabanaya ilmo laga xaday oo ilaa hadda weysan balse maanta waxa ay sheegtay in wixii maqli jirtay iyada ku dhaceen si aysan u suurtagelin tuugadaas doonaysay in ilmigooda xadaan allana uu
aysan ugu talagelin in ilmaygaas meesha laga afduubto ama laga dhaco, iyada oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga digtay dhacdooyinkan argagaxa leh ee dhacaya inay yihiin intooda badan kuwo dhab ah. Waatana muuqaalka uga sheekeynayso dhacdadaas argagaxa iyo murugada iyo fajaca ku riday. ilaa aadaa walwale u dareemay naxtin weyn ay ugu dhacday waan cararnay annagoo kobo la'aan ah gabadhii haddaan u tagna meeshii alxamdulillaah rabbil caalamiin hadday noo badbaado qabto alxamdulillaah rabbil caalamiin aan dhahnay gaarigiina waa arki weynay meeshuu ka cararay bismillaah familka dhan xaafadda dhan waa la baxaan ku dhaha saqiir iyo kabiir waa la cararay alxamdulillaah haddii gabadhii noo nabad qabta aan u tagnana alxamdulillaah rabbil caalamiin aan dhahnay gaariga annagu ma arkin meesha kuma aanan gaarin laakiin dadku waxay dhaheen gaariga hadduu meesha ku sii cararayay. Sidoo kaleete waxay inoo sheegtay dhacdadani inay ku abuurtay welwel aysan horay u qabin maadaama ay hadda ku kaliftay in ilmihii dugsiga u dhiganayay xilliga dugsiga ay aadayaanna loo wado marka laga soo fasaxana dib looga soo celiyo oo lasoo wado. cabsi maxaa ilmihii dugsiga la geynaa in qaf weyn geedo moogiye keligood xataa inaan u dirno uguma aamin qabno hadda waaba la maqli jiraba inay tuugadu jirto ee macnaha ay magaalada ilmaha laga gurubsaday iyo waxbaa la arki jiray laakiin hadda waxayba noo caddaatay annagayba nagu soo dhalta sooma oo annagayba na soo gashay ilmiheenna in la qaato ilaahayna nooga badbaadiyey. kaleete dhacdadan waxaa inooga warramay oo meesha goobjoog ka ahaa Maariyo Maxamed oo deris la ahayd Ifraax oo ah qofta dhacdadani ee ku dhacday. Waxayna sidoo kale iyadoo inoo sheegtay in xaafadda iyo gebi ahaanba eriyadaas dhacdadaasi ka dhacday ee ku abuurtay welwel iyo qalqal fara badan maadaama ay tahay dhacdo aad u naxdin badan. deegaanka xaafadda wallaahi cabsiya ku wada jirto ilmahooda dhan inay guryaha ku xareystaan ay keeneen dir wax baashaala banaankana ma jirto marka ilaahay aa u toogna wixii oo cadowgan inuu ilaahay naga qabto wallaahi qalbiga ka ilmi marka waxa sameeyna ma aqaan oo ilaahay nala jiro. Waxay ila tahay inaad soo daawatay dhammaan muuqaalada iyo warbixintan oo dhameystiran waxaase dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed uga digaynaa inay ka feejignaadaan ama ay ka digtoonaadaan qolyahan burcadadeedka ah oo dad qalka wada ah ee doonaya inay ilmaha yaryarka xadaan kadibna ay sii beecgeeyaan oo sii iibsadaan iyadoo ilmaha la xado ee muddo socotay balse 3 bilood ka hor 2020 bishii 8 ilaa bishii 10 ee ahayd xaaladii ugu xumeed ee ilmaha la xado maadaama ay soo badanayeen xilligaasi waalidiin fara badan oo ilmahooda weysan iyo sidoo kaleete rag badan oo doonayay inay ilma xadaan oo xilligaasi lagu qabtay. halka ilma xadistu markii ay soo badatay waa ay joojiyeen qolyaha ilmaha xada iyaga oo 2 bilood oo u dambeysay sanadii hore ee tagtay 2020 xaaladdu caadi noqotay oo ay yaraatay ilmay la xado. waxaase dib hadda u soo bilowday sanadan cusub 2021 ilmay la xadayo iyo ilmay la doonayo in la afduubto iyada oo gow u tahay dhacdadan argagaxa leh ee ku dhacday gabadhan Soomaaliyeed walow ay jiri karaan dhacdadan dhacdo la mid ah balse aysan waalidiinta ee dhacdadaasi ku dhacday aysan baraha bulshada horkeenin ku soo wada duube waxaanu leenahay ilmaha ha laga taxadaro oo ha la ilaalsado sidoo kaleete muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro laag saar oo sidoo kaleete haddii ay tahay booqashadaad ugu horreysay aad janalkana ku soo booqato waxaan si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana furato si ay kuugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaane.